جروب كرير أساسي كشقينية inay xumaato wada dhalashada tulweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaqayeen shan maamulka SSC iyo dawladda Khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay wuxuu ka dhaxlayaa hadaba aan idin cadeeyay qorshahani ma aha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waafuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay gruubkan waxaad ku garan kartaan waligood wanaag reer SSC kama shaqayn waligood dun uma yangelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC waxa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay majaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen gruubkan siyaasadeed waxa ay hirgelinayaan ama ujeedkoodu uu yahay marka hore in la kala kaxeeyo tulweynaha harti marka labaadna siday ka shaqayn jireen inay kala kaxeeyaan reer SSC marka labada waji lagu guuleysto waxa sacab lagu soo dhaweynaya Somaliland oo wadadaasi ay tahay takaliya u furan maadaama ay awood gabeen maanta ayan ku abaari karin awood in la kala qaybiyo dadka reer SSC tolkood lagu diro illa la soo taago iyaga sidii loo kala kaxayn jiray loo kala kaxeeyo kala dambaatihiin la yiraahdo maalinta taasi ay dhaxdana sidoodii iyagoo dulundulceynaya Somaliland ay soo gasho laascaanood wiilashani maaha kuwa cusub waa kuwa la yaqaano waa kuwa hore sidan u sameeyay oo u hirgashay ku nabad galeen gruubka aan tilmaamayo ayaa iyagoo fulinaya qorshahooda cadow waxay isa saareen oo isla doonteen hadal anigu aan ka iri garacad iyo hadal garaajama garaad Ismaaciil uu ka yiri magaalada laascaanood oo aan isxusayn hadalkii garaajama uu ka yiri halkan cadow baa ku soo duulaya goluhuna uu weydiiyay cidda uu uga jeedo isna uu yiri hay'ada iyo qolyo kale gadaalna waa ka sheegi doonaa hadduu rabana qoladan aan basheegayo uu u jeedo iyo hadal aan ka iri garacad dekada markaanu booqanay ina muuqatay baahida maanta reer Khaatumo ay qabaan inay ugu weyn tahay dekad shaqaynaysa iyo deegaan ku soo biira si looga jaro xarigan lagu xiray ee reer Khaatumo ay kula yihiin xaqi ay ummadda Soomaaliyeed ku lahaayeen xarigan oo ah laba gobol oo buuxa ma tihidin si loo helo taa markii aan ka hadlayay laftigeeda kama boodsanayn kuma xadgudbayn in gobolka Mudug iyo degmada Garacad ay ka tirsan yihiin dawlad dadna uu dego aniguna aanan ku tala bixi karin iskana soo goosan karin Khaatuman aanan ku soo dari karin xadgudbayga ma ahayn waana ku ixtiraamaya dawladda Puntland ee deegaankaas uu ka tirsan yahay iyo dadka ay degan laakiinse waxa laga maarmaan ah oo cid walba u cad Khaatuma waxay u baahan tahay deegaan ku soo biira deegaankaasi gobolka Banaadir kama imaanayo deegaankaasi meesha kaliya ka imaan karo waa dawladda Puntland waxa muuqata lagana leexleexanaya in Khaatumo iyo Puntland ay wada hadlaan in reer Khaatumo ay ku qanciyaan reer Puntland in ay deegaamo ka mid ah Puntland ku soo biiraan Khaatumo si loo helo dawlad buuxda si loo helo laba dawladood oo walaalo ah oo isgarab degan oo Ilaahay haduu ku roon yahay iskaashada ninka keeni kara barnaamijka afdheer oo ka cad oo ka wanaagsan oo lagu gaari karo dawladnimo buuxda oo ay Khaatumo gaadho ha soo bandhigo maanta SSC Khaatumo iyo dadkeedu waxay ku sugan yihiin barisamaad xilliga barisamaadka ana nin walbaaba laba nin buu la egyahay hase yeeshee maalmo dhaweyd oo aan fogeyn barisamaad laguma sugnayn maalmo adag baa ina soo maray maalinta ninka la kala gartana wanaagiisa iyo xumaantiisana waa maalinta ay adag tahay maalmihii dhawaa ee adkaa tagtadii ina soo martay waxa ku tiran waan cidina ka tiri karayn ninkii dhagtiisa ilaashaday iyo ninkii dhabankiisa iibsaday كان هانا ويوعد يا ريال خاتمه وبالله التوفيق